Sirta jacaylka dhabta ah, 5 luqadood oo jacayl ah oo lamaane kasta u baahan yahay inuu fahmo. Jacaylku waa dareen uu qof walba raadiyo, in la fahmo, la qiimeeyo, lana daryeelo si qoto dheer oo gaar ah. Mararka qaar, xitaa marka dareenku xooggan yahay, lamaane ayaa la kulma caqabado xiriirkooda ah, waxayna dareemaan in aan si buuxda loo fahmin ama loo jeclayn. Tani waxay badanaa ka timaadaa in dadka ay si kala duwan u muujiyaan una fahmaan jacaylka. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan. Ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Gary Chapman ayaa buugiisa caanka ah 10 Love Languages, The Secret to Love That Lasts ku sharaxay fikradda ah inay jiraan 5 luqadood oo jacayl ah. Marka aad barato luqadda jacaylka ee adiga iyo tan lamaanahaaga, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si sax ah u muujiso jacaylka, taasoo xoojinaysa xiriirka iyo kalgacaylka. Awoodda erayo wanaagsan. Luqadda erayo dhiirigelin ah waxay ka dhigan tahay in jacayl lagu muujiyo hadal, ammaanta, bogaadinta, dhiirigelinta, iyo weedho sida waan ku jeclahay. Dadka luqadan ku hadla waxay dareemaan jacayl marka ay maqlaan erayo naxariis leh. Weedho fudud sida shaqo fiican ayaad qabatay ama waan ku qadariyey waxay maalintooda ka dhigtaa mid ifaysa. Ka fogaanshaha dhaleecaynta iyo bixinta ammaan daacad ah ayaa xiriirka xoojiya. 2. Waqti tayo leh oo la wadaago. Waqti tayo leh waxay ka dhigan tahay in si buuxda maskax ahaan iyo dareen ahaanba loola joogo lamaanaha. Tani waxay noqon kartaa wada sheekaysi macno leh, hawlo la wadaago, ama waqti la qaato iyadoo aan wax mashquul ah jirin. Dadka luqadan ku hadla waxay dareemaan jacayl marka lamaanahooda uu mudnaanta siiyo waqti wada jira. Habeenno taariikhi ah, safaro usbuuceed, ama casho aan telefoon lahayn ayaa kor u qaadi kara xiriirka. 3. Calaamado jacayl oo fikir leh. Gifts ama hadiyado ma aha wax kaliya oo la gacangeliyo, waa dareenka iyo dadaalka ka dambeeya. Dadka luqadan ku hadla waxay u arkaan hadiyad macno leh inay tahay xasuus iyo jacayl. Hadiyaduhu ma aha inay qaali noqdaan, xitaa warqad gacanta lagu qoray, cunto uu qofku jecel yahay, ama ubax yar ayaa qalbiga taaban kara. Waxa ugu muhiimsan waa dareenka, fikirka in qofku ku xusuustay. In la hilmaamo munaasabadaha gaarka ah ama la bixiyo hadiyado aan macno lahayn waxay dhaawici kartaa xiriirka. 4. Muujinta jacaylka iyada oo la waxtarayo. Ficilo adeeg ah waxay ka mid yihiin waxyaabaha la qabto si loo fududeeyo culayska lamaanaha, karinta, nadiifinta, adeegsiga ama hagaajinta wax. Dadka luqadan ku hadla waxay rumaysan yihiin in ficiladu ka hadlaan wax ka badan hadalka. Marka aad si daacad ah u adeegto lamaanahaaga, waxaad muujinaysaa daryeel iyo ixtiraam. Ficiladani waa in si ikhtiyaari ah loo sameeyaa ee aan la khasbin. Marka lamaane isqadariyo oo iscaawiyo, xiriirkoodu wuxuu yeeshaa saldhig kalsooni iyo taageero leh. 5. Taabasho jidheed oo jacayl ah. Taabasho jidheed waxay ka mid tahay hababka ugu tooska ah ee jacayl lagu muujiyo, habsiin, dhunkasho, gacmo ishayn, iyo taabasho kalgacal leh. Dadka luqadan ku hadla waxay dareemaan jacayl marka ay jir ahaan u dhowaadaan lamaanahooda. Taabashada jidheed waxay kor u qaadaa dareenka wanaagsan waxayna yaraysaa walbahaarka. Taabasho yar oo garabka ah, isku dhowaansho fadhiga, ama dhunkasho degan ayaa saameyn weyn ku yeelan karta xiriirka. Lamaane fahamsan luqadan waxay si dabiici ah u ilaaliyaan dhowaanshaha jidheed si ay u muujiyaan jacayl.